waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirka cilmi baarista sanadlaha ah ee jaamacadda SIU oo sanadkii saddexaad la qabanayo. Shirkan oo soconaya muddo 2 maalin ah ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, qaar ka mid ah madaxda jaamacadaha dalka, madaxda dugsiyada gobolka Banaadir, barayaal sare, aqoon-yahano, madaxda iyo ardayda jaamacaddaasi. Intii uu socday shirka ayaa waxaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo kala duwan oo ay ka mid yihiin helitaanka waxbarashada reer guuraaga, saamaynta baraha bulshada, iyo saamaynta siyaasadda waxbarashada dalka. Ugu horreyntii waxaa shirka cilmi baarista faahfaahiyay Axmed Sheekh Cali Axmed oo ka mid ah howlwadeenada jaamacadda SIU. jaamacadda SIU waxay qabanaysaa shirkii saddexaad ee ku saabsan cilmi baarista oo ah SIU Multidisciplinary Academic Conference. shirkaasi oo ku saabsan mawaadiic aad iyo aad u fara badan oo ugu horeeyo waxbarashada heerka sare, waxbarashada sare, caafimaadka, dhaqaalaha iyo sidoo kale politicska ama public policy-ga. Jamila Ahmed Aadan oo ka mid ah hormuudada jaamacadda Bariga Afrika ee Garowe ayaa ka mid ahayd cilmi baarayaashii halkaasi ka soo qayb galay kana sheegaysay cilmi baaristii ay sameysay. aniga shakhsiyan horta background-kayga waa caafimaad oo waxaan hadda sameynaya cilmi baaris hooyooyinka ku saabsan mowduuc kasta oo khuseeya wadankeena iyo waxyaabaha ka jira, xaaladaha ka jira dhanka caafimaad ha ahaato, dhanka waxbarasho ha ahaato, dhan walba ee khuseysa bulshadeena. marka anigu aad baan uga qayb qaataa, waana soo dhaweeyaa. Gudoomiyaha jaamacadda SIU Maxamed Yuusuf Sheekh Cumar ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay cilmi baarista iyo doorka ay jaamacaddu ka qaadanayso. cilmi baarisyo kala gedisan oo lagu sameeyay maaragtay qaybaha nolosha ee kala duwan waxaa loogu talagalay ulajeedada laga leeyahay tahay haddaan Soomaaliya nahay ama adduunyada oo dhan in lagu xalliyo mushkiladaha bulshadeena haysta, mushkiladaha haysta ee dhaqaalaha, inaan tan cilmi baaris samayno si cilmi ah u xallino. intii suuragal jaamacaddu waxay ku dadaashaa cilmi jeedintaas ama baybarka inta laga jeedinayo inuu la kulmo shuruudaha quality-ga. Ugu dambeyntii agaasimaha wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare Ismaaciil Yuusuf ayaa isna sheegay inay faafin doonaan cilmi baarista la sameeyay, qorshahoodana uu ku jirto wax badan in maartay laga hadlo cilmi baaris lagu sameeyo muhiim ay tahay. tan labaad insha Allah taala dadaal waa ku jirnaa cilmi baarisda la sameeyo in meel lagu faafiyo inaan sameyno, waa dadaal waa ku jirnaa, qorshahan ugu jirta haddii Ilaahay yiraahdo. waa bogaadinayna jaamacadda SIU dadaalada ay wado, waana ku boorinayna inay sii wadaan. waa wax dhaxalgala ummadda Soomaaliyeed faa'iido badan u leh. wasaaradduna ay taageerayso gaar ahaan xafiiska tacliinta sare ama waxa tacliinta sare. Cabdulcasiis Meegaag, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.